منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وكيلها لها عيدا سانيغا أبورني يدون بان هدنا نقول علينا دونا مردن بنا يدا نقصوا دحساري دونا بإلهي ملك إسرافيل عليه السلام مالك إلى أبوري إلى جوجدنا وحال يدي لغها انتو لك لبحي فورنكو بيقبوق أفوفين أفوق قشدي بالليل وحاول نسوق يا إلهي أمركي سكنية بس وملك أحاديث تقاركود أي شيء يسلم دي ساحر ربول شمبرك حربت ألكا كدولة إلى إنتا كلا وحو الدولة يعتضبات السنة قيل دي سوء كلية أيا خلائط ونن لو وضع نمان اللي أرقى حيا وحاول نسوق يا وليدن كإلهي بور ما لغو أولن دونا أفوف لأن يساقنا مركز فورين تأفوفي دونا ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون marka arraajifa waa tan hore weeyaan khalqiga oo dhan ka nixinaysa khalaaiqdooda qulubtooda galgalaysa haddana waxa ku xigta buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam tee suurta labaadna waxa weeyaan waa tabacsiga qiyaamaha khalaaiqda la soo wada bixi doonaan sidaad u seexanaysaa buu nabigu leeyahay kaco ilaahay xasuusta saacada qiyaamada basoo dhow jaa al-maut wa bima fihi ba nabigu waxaa kaloo yimiday geeridii dhimashadiina way timiday oo laba qiyaamo ayaa la sheegay qiyaamo weyn iyo qiyaamo yar qiyaamaha weyn waxa weeyaan waa saacada suurta weeyaan qiyaamaha yarna waxa weeyaan waa ajashiisa qof walba markay ku timaado qiyaamihiisa baa kacay marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo madiinatul munawwara jooga ومقالة المدينة أصحاب محمد ودن أي وذا جوغان هذه نبي محمد وقبه إنه نحجه ولا يولى ضده كعو إلهي حصوصته كعو إلهي حصوصته كعو إلهي حصوصته وصعد قيامته يا صورته يا جيرده يا نرشد ذنب آخرته وحسوسيه هذه مقالة دي مدينة زمن النبي قدتك المؤمنين تأهايد كن ولا أي مذاكرة داس يا برارجين تأي كم مار موايين إنكو زمن كان ما أنت جونا لك ورم تيانو باهنا مركز إن مرول بإلهي لنا حسوسي زمن كان قفلة آيا بدن جهلك آيا بدن معاصد آيا بدن فتنت آيا بدن يا السيانك آيا بطول مرول بإلهي بلغو عاسنيا زمنكوغينا waxay ahayd magaalada Madiina magaalada dadka ku nool ay Ilaahay amarkiisa wada hoggaansameen oo sunnadii Nabi Maxamed ay ku wada dhaqmayaan sallallahu alayhi wasallam dadkii magaalada ku nool hadii Nabi Maxamed uu la dhaxmarayay arayada rasuulaha kaco Ilaahay xasuusta kaco Ilaahay xasuusta suurtii baa dhici doonto qiyaamadii baa dhow oo malagii baa suurta afuufaya oo haddana khalqiga oo dhan ba argagaxi doona haddana khalqiga oo dhan baa wada dhimani doona qofku markuu dhintana dhimashada maxaa ku dhex jira su'aashii qabriga ku dhex jirta noloshii qabriga ku jirta cadaab la qabrigii baa ka dambeeya haddana jidkii siraad baa ku xiga bankii qiyaamaha haddana loo soo bixi doona ilaahay baa la surtaagi doona taasaa markaa nabigeenu dadka ku baraarujinayay sallallahu alayhi wasallam saxaabiga Ubay ibn Kacab baa hadloo yidhi yaa rasuul allah markaan ilaahay anigu aan baryaayo صليغا هادان دعاديدا افر قيبيو قيب ان كدhiga bal ka waran marka buu nabigu waa khayr hadaad ka ziyadisaa kaaga khayr badan buu nabigu ku yiri hadaad ka ziyadisana waa khayr marka buu yiri ka waran hadii aan ka dhiga salligaaga kala bad oo ducadii aan ducaysanay ilaahay aan baryaayay kala bad hadaan adiga kugu saliyana bal ka waran inta kalena ana xaajadeeda ilaahay aan weydiisto marka buu nabigu waa khayr haddaad ka sii ziyaadisana waa khayr buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam haddana markaa buu yiri ducadaydii markaan u qaybiyay saddex qaybood laba qayboodna adigaan kugu sallin qaybna ma aragtaan anigana baahideedan ilaahay u sheegadeeda ka waran markaa buu nabigu yiri waa khayr haddaad ka sii ziyaadisana waa khayr buu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam markaa buu yiri yaa rasuul allah haddii marba salligaagii haddii la badiyo khayrun la sii dhexgalaayo
baahidaydii dhannayd ee ilaahay u sheeganayay waxaan ku soo koobayaa buu salligaaga adigu ma kugu sallimo markaa buu nabigu yidhi idan tukfaa hamuka wa yughfaru laka danbuka buu yidhi haddaad aniga igu sallidid hamigaaga wixii adduunka aad muraad ka lahayd walwalgelinayeed ku haminaysay waad heshay dembigaagina waa lagu dhaafay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis kale waa kii nabigu lahaa man shagalahu alqur'aanu can dikri ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه بالنبي عليه الصلاة والسلام لك قرآن أخرسك كن مشغولة بريدي ذكري كم مشغولة قرآن كقراءة ديسة إلهي وكيلها كوا إبريا يوحان إياك آنسين وحكفل لبضما نساق السيام إلهي لكاس قرآن كوا آخرين يا صوما قرآن كوا آخرين يا باهدي سيلقوا ضبولا يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام سلق يسيبوا بدي يا صوما مراد كوا أدبيد الله هاي ودنبا إلهي ضبولا يا حاجدين آيات ضبولي كرك إلهي با ضبولي كرك لكن تاسي يقين بأو باهنتا كالسوني إن يقين سنة الله باهنيا صحابة الرسول خبر كالنبي قلوش يقول يقين بأو قادنيا هذا الدعاء هذه دنا إذا هل كان تود سكدكتو سلّي يجوا وناتكو كوبته ونبي كويري وحي أدون كان هذه الجير مر والبكو أتكو همين يسعين هذا الشو والله هالشو والله قصيه ونبي كويري آخرنا قف بين هذا كوح وكبقى وذنوبتي سوى دم بيجاكين والله قاعد دافع برسول بركة الله إنه دم دافع والله هذا الشيء قف أدون كودب ليه أدون كان وحو ولا يهي همي آخرنا وحو قف ما ركتانه ولا يهي والدم آخر وحا كلي قفك وكبقى وذنب جيس أدون كان قفك وحو قلبي يسكوها يا حاجة ولي هي وعد أقوم يسايور هذين أيام دبها يستا دبتان عد كف يدور ربا قفك نوال بدبها يستا مانت نوال بحاجة أيولي لأن نلا باهي ما أنا أقول باهي إيقار الله كان باهي قار ولي أدو باهي قار الله لكن كباهي ذا نوال بكجر تقوك كور هيواي إلهي باهي هذا كون ضوالي مركز مركز إلهي طاعديس وحنو باهنا إنا كو قادنا يقين وأنا فرقي قلنا حيا مسلمين تمان تأدوية جوك تبال ليلي يا مسلمين تعهدي النبي قدوك جوكيس دبلو فرسو حنون كانيما قدوك كف ذي الله شاقي ما بجربي جرنا ولا أركي لهابي waad aragteeno sidii dadka loogu celcelinayay ayaa gacmaheena dhaqayna afkeena aan xidhanay qof walba wuxuu ku jira digtoonigu ku jira wax jirana ma jiraan tusalaama maxaa keenay baa leeyahay waa hadal kan badan ee dhagteena ku dhacdhacaya mar walba lugaha gacmaha maydha markaad hindhisaysaan afka marada saarta 2 mitir dadku ha kala dheeraadaan meelaha zaxmada buuqa inaan la gelin telefoonadii baa lagu bolograamay tikraar ka badan hadalka lagu celceliyay wuxuu keenay qofkii isagoo waxba qabin baynu shakiyaba oo haddaan hindhisootana uu kuraado war xaggaad u jeeso corona jira la yiraahdo mid baa awal ma soo hindhisoo jiray ma buu yiri ma ima kees bedeshay hindhisada ma fahamta kalsoonida bini aadamku waa cajiib wixii lagu celceliyo qalbiga uu galaya asxaabta rasuulka radiyallahu anhum iyo dadkii wanaagsanaa qalbigooda waxa ka dhaadhacday laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah sallallahu alayhi wasallam warka ilaahay ayaga ku socday iyo warka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dadna dad waxay noqdeen warka ilaahay warka nabiga mooyaan war kale ba uusan galayna ma bagala war kale ba iyaga أبو درداء مسكيت كسقوا فرديان إنه يبدور ورق الكاك الضبا إن يروج ريك عوك كجان ما جوبنا يبوكين هذا نكو كلا أويمد أبو درداء متيد ها أقل كاك الضبا إن يروج ريك عوك كجان ما جوبنا يب كو صدق حد بأويمد سيدي أسيلك كي أفراد بأويمد دهيل الضب كي مركو أقل كاك ودو هذه وسك بختي أبو درداء وحوج جوا ما تقانا
قد علمت أن الله لم يكن ليفعل ذلك بي وأنا وإنه لا يقلقيك وضبك قبل سنين ضبك سيقلقيك إنه سنقاري بأنه قابل عنه markaas ay yiraahdeen labadaadan hadal ay ku kala hadlayso keeba la yaab badan bay ku yiraahdeen markii aad dadka kula hayd aqalkaygu ma gubanay iska noqda mise ka dambe aad leedahay waan ogaa ilaahay aqalkayga inuu san dabka iga qabadsiinaynin waxa sidaa uu yiri baan sheegi buu yiri nabiyullaahi muhammad alayhi salaatu wassalaam ma ka maqlay isaga oo leh gabalku markuu dhaco iyo marka waagu uu bariyo نك دعاء أخرستا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم waxaan ka maqlay buu ducada nabi maxamed oo yiri ninka galabtiina mar yiraahdo subaxdiina mar yiraahdo haduu galab ducada yiri ilaa waagu ka baryaayo masiiba kuma dhacdo buu rasuulku yiri haduu waagu markuu baryo yiraahdo ilaa uu ka galabaysanay masiiba ma soo gaadho balu fiirso ducadaas maanta innaka waa noogu qoran tahay kutubta iyo ducooyin fara badan ونبي محمد عليه الصلاة والسلام لقوري لكن كالصونة ذا يكو أي قبان يا كالصونة ذا ما أنت نكو عن قبنك والرب سكمت ميت كالصونة ذا شيء عجيب شيء قفك بين هذا واعتقادنا إلهي النفع وقول نحمر يا بالي ولو شيء قاسي هذا النقض شيء بين بهالنقضين nin reer baadiya yaa magaalo soo galay oo bokooday oo dhakhtarka la geeyay xogaha kaniin baa la soo siiyay kaniinka xumadda iyo qandhada dadka reemigu daw afka laga isticmaalo ma yaqaanaan waxay yaqaanaan ay caqiidaysan yihiin wadaad u tago qardhaas u qoro qardhaas waa taqaanaa ma malayn xirsi waa tiraahdaa qardhaas dadna meelaha ku xidhaan oo iska bogsadaan marka kaniinkii la soo siiyay bacyar buu ku xidhxidhay inuu isticmaalay baa la mooday maalintii dambe la wareysto lagu yidhi war bal ma ladnaato dawadii ma qaadatay haa dawadii ilaahay waa igu shaafiyey buu yidhi oo adoo cunayaba laguma arkine cunaya wax la cunaanu ma arkine bacdi yarayd iyo wixii ku jirayba maran ku duuduubto halkana ku xidho ilaahay waa igu shaafiyey والله فيرس يقينته عجيب قفك هدو شيء يقينه قاتبه لي ولو شيء صحابه نقض شيء أصحين إلهي وكو امتحابا منفعهم بإلهي كو صودح قليل وحي بن آدمكو أي سمايين أيادتكم ما أنت كو كالسونيهين محانو كو كالسونا وين ورك إلهي ورك النبي قلنو شيئا صلى الله عليه وسلم نبا النبي قوي مدوي لحاليته ولا دبق اللعبة يقنيني الله يقسمك صح الله أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق لم يضرك بنبي حداد أورن الله كلمة داس حلقات قلب أيستي أعوذ بكلمات الله تامات من شر انت أسوأ حداد أورن الله النبي كويري كما بردبان حبك ما قادم خبر كالنبي محمد ونوشيق عليه الصلاة والسلام خبر لجربي معها وخبر يقيني يقين ومحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هل قال ما أنت كلي ذا نبي علمد إليه وكالصون داس صدق له الحمد لله دينتي ما أنت وانا قانا صلاة دي واتوكنا قرآنك ونقرينا صحابة النبي قل مالو دري رير بي دول تقين مركا قالا دعوة دي بي قارسيين ودعوة دي بلغا قادم واي markaasay waliba yiraahdeen war islaami mayno waa hagaagana marti qaadan isku diinba manina maxaan niga marti qaadnaa duqi reerka ugu weynaaba habeenkii masbaqalina balaa ya cunto
markaasaa geed iyo dawo iyo wax walba waa loo raadiyey kolkii dawo loo waayey laga quustay bay siraadeen niman yahow nimankii xalaytoola martiqaadka aan u diidnay muslimiinta ahaa waa kuwa weli meeshii degane bilow iyaka dawo laga helay markaasaa loo yimid odaygii inoogu da'da weynaa xanuun baan waxbaa balaaya naga cuntay oo waa sankaraadoo naftii baa ka dhacaysay dawo ma haysaa amiirka jamaacadda watay baa ku yidhi haa dawo annaka hayna buu yidhi laakiin dawadaa may nima siinayn ilaa ujuuro aad keentaan asxaabtu way isqabsadeen dawadeed haysaa wuxuu yidhi umma alqur'aan baan haynaa buu yidhi suuratu alfaatixaan hayaa buu yidhi iyadaa ku filan buu yidhi da in lacag lagii xoolo lagu qaato may bannaan tahay haa soo iyakoo martiqaadkii noomay diiday way noo bannaan tahay buu may ma bannaan iska daaya khilaafka daaya uu qaboojiyey odaygii baa la dulgeeyey suuraddii faatixadu ku akhriyey uu iska kacay waxaa la yidhi ninkan qur-aanka la dhaqaaqeen maxaa sugaysaa namari wax iga yaabiyey baa maanta ay helay tiri maxaad aragtay cumarkii aad ogeyd cadaawadda uu muslimiinta u qabo oo waxaan arkay maanta dabcay oo jalcay oo xataa noo duceeyey oo halkan uu kuugu yimid ahaa oo muxuu yidhi sidaasuu yidhi oo ma cumar bnu khataab inuu islaamaad damacsan tahay buu ka yidhi dameerka odayga khataab baa islaamnimada uga dhowe cumar weligii islaami maayo dameerka raway namari buu ku yidhi istiqraaq waa la fogaysanaya cumar islaamnimadiisa laakiin maalinta cumar islaamay islaamka nasri buu noqday ugu ninka ay saxaabadu u arkayeen ninka ugu cadowsan gaalada ee dhibta ugu weyn muslimiinta u geysanaya wuxuu noqday ninka muslimiinta ugu naxariis badan buu noqday ninka muslimiinta ugu cadaalad fiican buu noqday ninka caadigiisii cadaaladdu adduunyadoo dhan gaadhay buu noqday ninka iska daa bini aadan xaqooga intuu dhaafay inuu ilaaliyo ayuu odhan jiray faraska iyo ciraaq faraska iyo dameerka ciraaq ku turanturoonaya dariiqii inaan u hagaajiyaan ka fikirayaa buu yidhi iska daa bini aadankii xaqii bini aadanka intuu daboolay ayuu odhan jiray faraska ciraaq ku turanturoodan anaa qiyaamaha lay weydiine sidaan jidka uu maraya aan ugu hagaajin lahayn ayaan ka fikirayaa buu yidhi webi baa soo fatahay markaasaa cumar loo sheego yidhi webigii hee ay badan buu laayo iyo dameero badan buu laayay uu ooyay cumar bnu khataab wuxuu yidhi qiyaamaha anaa lay weydiin buu yidhi xayawaanka webiga ku dhintay oo la odhan doona maxaad uga badbaadin weydii naxariista cumar qalbigiisa ku dhalatay eega boqorradii adduunyada haysanaya markii dowladahoogii laga adkaaday dhaqaalaha ay haysteen bay saxaabadu soo qaadeen madiinay keeneen iyadoo baqal lagu wado dahabkii iyo kuraasidii iyo taajkii marka cumar bnu khadaab baa yidhi xoolaha intaa la eg ragga ka keenay ciraaq dhinaciiga shishe ee magaalada madiina iigu keenay iyagoon waxba ka qaadan raggaasi waa rag ammaano leh buu ka yidhi waa rag ammaano leh markaa buu yidhi yaa amiira almu'miniin iyaka maaha buu waa adiga buu yidhi adigaa hantidii ummadda ka dhowrsoonaaday iyakuna markaasay hantidii ummadda iska ilaaliyeen buu ka yidhi hantida ummadda adigu haddaad daaqi lahayd iyakuna way daaqi lahaayeen buu ka yidhi way daaqi lahaayeen dadkaas nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadaalkiisii raggaasaa ku soo baxay iimaan leh oo diin leh oo taqwo leh inaan nafteenna dhisnoon ummadda dhisna laynooga baahanya ka warran dacwadda ka shaqeeya dacwadda u bax ummadda xagga ilaahay nugu yeedhno waxay ka dhigan tahay dadka in laga shaqeeyo ayaa awlaaya mise dhulka in laga shaqeeyo bali sheeg iminka dadka adduunyada joogoo dhan waxay u dadaalayaan dhulka inay ka shaqeeyaan inay waddooyin hagaajiyaan inay dhakhtarro fiican helaan inay tacliim fiican helaan inay waddooyin fiican helaan inay dowlado fiican helaan in nidaam fiican ay helaan taasay u doonayaan waxaasoo dhan waxaa ka awlaysan in bini aadanka horta laga shaqeeyo oo bini aadanka la islaaxiyo bini aadankuna wax kale kuma islaaxaya bay culimmadu leeyihiin ilaa ummadda horta iimaanka laga dhisa mooyaane yaqiinta dee diyaar ma naha insha allah yaa bal u diyaaray insha allah waqtigiisa inuu dadaalka diinta ku bixiyo naftiisana islaaxiyo oo ummaddana soo islaaxiya u diyaar insha allah dhahada insha allah si fiican u dhahada